waxa weeyaan waxa la yiraahdaa Xaawad Daahir Faarax Muuse waxaan u dhashay gobolka Qardho waxa la eedan la haystaan waxa weeye 8 cunug oo u dhalay nin la yiraahdo Maxamuud Maxamed Cali Nuur ninkaas oo aan kala tagnay ka bacdina ilmihii dhaqankooda isla fahmi weynay haddaan isla fahmi weynana ilmihii asaga hadda koor ku wareejiyay haddaan ku wareejiyay wuxuu geeyay gobolka la yiraahdo meesha gobolka la Qardho waxa way ilmihii noloshoodii ba ka soo bixi waayay xaaladoodii waxay gaadhay inay ilmihii guriga ka xirto oo banaanka u xirsho aniguna markaa waxaan ku sugnahay halkacyadan hadda aan joogo laftigeeda waa la soo wacay waxa la ilmahaagii waxay joogaan banaan cidla ah saakana guriga laga xirto xilligaas waxaan galay inaan kharash bixiyo baabuur dalbo gaari soo saaro gaalkacyo keeno 8 saac oo subaxii damaa la keeno maanta damaa waxaan ku yiri Maxamuud waa wacay ilmihii ana haya cidna ha u dhibaateen cidna ha weydiin arintii markay saas ahayd dacwo galay dhul badan buu maray wixii maagta ilmaha laga soo cesho kan weeye waxaan wacay ninka la yiraahdo gudoomiyaha Qardhood Cabdi Saciid ninka la yiraahdo waxaan ku yiraahdeerow ilmahaas ana gacanta ku haya ninkan waa igala wareegay waa dhaqan waayay waxaad samaysaa ilmaha meeshan ka soo qaaday ninka Qardhood ataaye tag oo xogtada soo ogow marka xogta ilmaha soo ogaatid amba dambiilay igu soo qor ama qof laga gardanay igu soo qor adeer waxa uu qar la siiyo waa tagay wuu soo ogaaday wuu soo wacay wuxuu yiri adeeray waad mahadsan tahay ilmahaana inaad dayac ku soo shawaan soo ogaaday laakiin ilmihii reerka way kugu haystaan waxaan ku yiraahday igu haystaan hal la qaybiyo inta waaweyn hal la siiyo inta yar yarna aan hayo gaalka ayar aan ku hayo ama meesha loo markaa lagu hayo runtii asaga cad aan leeyahay ma soo gaarin laakiin ilma adeertiis waliba nin la yiraahdo Maxamed Saciid birjiqon la yiraahdo baa soo wacay wuxuu yiri qayb iyo kala qaad iyo midna kuma jiro ina daayre magtaadu waa konton kan Maxamed ninka la daayir Faarax waa siin karaa bari subax adigana waa ku dilaaya bees baan ku kansanaya ilmahan waa la wareegaya ka bacdina markay saan noqoto lambarka waa damiyay gaaraan qabsaday cadaadaan ka beegsaday 2 sano cadaadaan deganaa cadaada cid aan ka aqaan ma jirin anigu ganacsataan aha afarta wadanka Soomaaliya isaga gooshi jiray cadaadaan degay haddana ganacsataan ka ah dukaan baa ii fura geel baan qalaayay ari baan qalaayay boosaasan gaadi u raranayay cid ilaahay abuuray walaalkay baa Allah ka dhig oo biilaysa ma jirin habeen hore markii la soo qabanayay ari baa boos igu raraa xilliga arigay boos ku maqanya lambaradii waa laga damiyay xurriyadu dhan waa laga qaaday aniga dhiig ma gelin cid ma dhicin ninka uun waa ilmaha isku fahmi weynay baa dhibaatadaas ka timid sababta carruurtu ku xasto waxay tahay carruurtii in mas'uuliyadoodii xagga aabaha ka soo bixi waayay ka bacdina aan leeyahay waa ka bacdina leeyahay jabal la yiri waa lagu dilayaa daada dhiba waxa kale oo lagu eedeynaya in carruurtii arrimo kale oo dib baa lagu eedeynaya maya aniga wax diina shaqo ku maleeyay iskuulka markay anigu aan hayay labada sideedaad bay gaareen fasalka salaad bay u gudbi lahaayeen gabadhaas hooyo haysatay iyadu ma jirin tan afraad bay ahayd meeye kan afraad waxa quraanka ninkan waa dhameer hor suurada uga dhinay ninka kala bari u maraayay asaga baa ima mustaqbalkooda ku dheelay dugsiga kala baxay burburiyay aniga hadaan geeyay qof waxaan anu dhuumata iskuul ma geyn meel kale ma geey dugsi quraan bis ay dhiganayeen eedan lagu eedeynaa in ilmaheeda takfiir ka dhigtay waxa ka jira waxba kama jiraan taas wax ka jira carruurta timir waxaan ahayn culimayaan cunada kala waa diideen timire waxaan timir ahayn carruurta ma cunayaan hadda saacadan saldhigan ugu kana ku soo cuno marka eedan lagu eedeynaa inaad takfiir carruurta ka dhigtay maya waxba kama jira arintaas anigu ninkaas baan isku sheegnay ilma dhaqashadoodii